waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinaynaa marka ugu horeysa inaan hogaamiyaashan iyo shacabkii maanta mudaharaadayay kalitaliska xilkiisa sii dhacay xilligiisa dhamaaday ina farmaajo oo maleeshiyaadkiisa ku soo xabadeeyeen ay bad qabaan dadkii mudaharaadayay iyo hogaamiyaashii siyaasadda intaba waxaa jira dhowr qof oo dhaawaca iyo kuwo kale oo dhintay wax gaareen oo weli aan xaqiijintooda la xaqiijino laakiin aan raadi doono hadduu ilaah yiraahdo waad daawanayseen si live ah oo dunida dhanaa ka arkayseen in dad mudaharaadaya oo siyaasiyiin ah oo shacab isugu jira la soo weeraray maleeshiyaad ka amar qaata sidaan sheegay ninka kalitaliska xilligiisa dhamaaday ay soo weerareen ilaahay naga badbaadiyey waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed ina farmaajo awalna xilkiisii waa dhamaaday madaxweynuhu maan aqoonsaneen waa sheegnay maanta waa gacan ku dhiigle waa dagaal ooge oo waxay dhihi jireen mujri xarb waxaan maxkamad adduun ahayn iyo cadaalad dalka gudihiisa oo kula macaamilayna maba jirtaba saaki laga bilaabo waa dambiile mudan in marinkiisa la marsiiyo waxaa kaloo intaa dheer in maleeshiyaadkiisa madaafiicdii ay noo wadeen iyo xabadihii ay nagu ridaayeen ee garoonka diyaaradaha noo dhaafiyeen dhinaciisa oo hadda ay civil aviationkii ay gubanayso naloo sheegay weli waxay u ooman yihiin dagaalka weli waxay u ooman yihiin dhiig inay daadiyaan weli waxay u ooman yihiin dad rayada inay dilaan oo xuquuqdooda u diidaan laakiin waxaan u xaqiijinaynaa asaga iyo maleeshiyaadka amar qaadataba inay maalmo yar u harsan yihiin markii la marinkooda la marsii lahaa way fursad ayay haystaa wiilasha maleeshiyaadka ina soo xabadeeyey ee joogay jagboontiyada aan marayna halhalan u naqaanaa fursaday haystaan ay ku tooba keenaan oo ay kalitaliska amarkiisa ku diidaan oo ay dadkooda soo raacaan oo dastuurkii dimuqraadiyadda u heliyaan weli fursaday haystaan laakiin ninkaa fursadda haysanin waa kaligitalis farmaajo shacabka Soomaaliyeed iyo reer Muqdisho dad la casii kara maaha dad la handadi kara maaha horaa loo cabsii waayey Ethiopiana cabsii waayey taangiyaal wata argagixisaa cabsii weysay dadka qarax ku laysa wuu riyoonayaa ina farmaajo hadduu isleeyahay dadkaana cabsi gelinaysaa oo kaa baqaaya mudaharaadka wuu soconayaa ilaa ina farmaajo uu ka baxo xilka uu ka dego hal waxaa maanta u fadhiyaa meesha inaan maqlo ninka sheeganaya ra'iisul wasaaraha ee xafiiska ku jira ina rooble soo ma ahayn warkiisaan rabaa inaan maqlo waxaan rabaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed qoorqoor warkiisa inaan maqlaan rabaa waxaan rabaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe hadalkiisa inaan maqlaan rabaa waxaan rabaa guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish inaan warkiisa maqlaan rabaa hadday dadkan matalayaan hadday deegaankan matalayaan maantay kala caddaanaysaa waxay soo saaraan iyo waxay yidhaahdaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u ballan qaadaynaa guusha inay intaas jirto qaaba qowsayni oo adnahay jirtaa dictatorkana ayaamiis ay tirsan yihiin inta godobta la gelaysa ha isqorto inta fursadda ay u furan tahay ha is sheegto maanta inta taariikhda diiwaanka ay gelinayso oo dadka xoreeyane ayagan ha is sheegaan waa maasantiin xalayto raggan halkan taagan waxaan qabanay shir jaraa'id shirkaas jaraa'id wuxuu ku saabsanaa in labadii madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ka horreysay iyo guddoomiyihii baarlamaanka ee Soomaaliyeed hore saddexdooda lagu weeraray hoteelkii ay deganaayeen iyadoo lala damacsanaa dil maanta waxaa ku xigtay in murashaxiintii iyagoo bannaan baxaya oo adduunyadu ay fiirsanayso la soo xabadeeyey xabadihiina allah caafiyo inta dhimatana allah u naxariistay dad Soomaaliyeed ay ku waxyeeloobeen isla xabadihii ishi dhaqaale oo dalka Soomaaliyeed uu lahaa oo ahaa aeroboorka xabadihii annagana la ku soo ridayay ayaa aeroboorkii madaafiic ah ayaa aeroboorkii madaafiicda ay ku rideen ayaa gubanaya hadda Soomaali waxaan rabaa inaan markhaati gashado
maanta meesha aan taagannahay anigoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya soo kama digin Soomaanan dhihin haddii la isku dayo in xukun la boobo haddii doorashada aan heshiis lagu noqon haddii la isku dayo in kaligii talis noqdo in dhibaatadanu dhaxayso habeenkii aan ummadda Soomaaliyeed u tanaasulay waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegay inaanan rabin inaan qayb ka noqdo dhibaatada ummadda ku soo socota haddii dariiqan lagu sii socdo meeshii baan taagannahay aan ka digay anigoo xukunka jooga iyo anigoo dibadda ka ah meeshii hadda dalkani uu taagan yahay dawlad waqtigeedii dhammaaday madaxweyne waqtigiisa dhammaaday oo ay xabad kaliya uga soo hartay duniduna nagu ixtiraami mayso Soomaalina ku horumari mayso meesha hadda ummadda Soomaaliyeed ay taagan tahay hal xal kaliya ay leedahay inta rabta inay dalka u turto inta aan rabin in dalkanu hagaago waa inay ka hor tagto inta rabta in dalka la tarantureeyo inta rabta in ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ay mustaqbal waafi ah yeeshaan waa inay ka hor tagto inta aaminsan fikirkaas ka soo horjeeda dawlad goboleedyada waxaan rabaa madaxdooda inaan u sheego waa madax Soomaaliyeed oo aan waqtigii muddaxiloodkoodii dastuurku siinaya aanu dhammaan oo sharci ah waa inay ogaadaan mas'uuliyadda ugu weyn dalka iyagay saaran tahay mas'uuliyad miisaaman waa inay ku shaqeeyaan oo macnaheedu tahay iyagaa laga rabaa xalka ee ma aha inay meel u fadhiyaan dawlad waqtigeedu dhammaado beesha caalamka waxaan rabaa inaan u sheego inaan uga dignay arrimahan iyadoo qoraal ah iyo iyadoo af ah haddii aad tusaale u baahnaydeen xalay iyo maanta idinkugu filan haddii aad sii fiirsataan idinkuna waxaad qayb ka noqonaysaan dhibaatada iyo gumaadka shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba oo ay joogtaan dadkeennan siyaasiyiinta ah oo idin matala inaan banaanbaxnana joojin mayno inaan idin matalnana joojin mayno cidna cabsin gelin karta oo naga leexin karta dalkan in lagu hago dariiqa ay xaq u leeyihiin dhalinyarada naga da'da yarna ka leexan mayno waqti adag ayaa lagu jira waqtigaas adag wuxuu u baahan yahay aqli iyo xikmad xoog iyo qoray uma baahno tanaasul iyo turid ayuu u baahan yahay tuurmo iyo tarantureyn uma baahno sidaas daraaddeed ayaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waxaa la soo gaaray waqtigii aan inteena badan oo halka raadinaysa meel ka soo wada jeesan lahayn si aanu dalkani mar kale ugu noqon meeshii mugdiga ahayd uu ka yimid alxamdulillaah dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waxaan filayaa inaad daawanayseen wixii maanta iyo xalay magaalada Muqdisho ka dhacay inaad daawanayseen weerarka qaawan ee kaligii taliska Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku hayo dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed dawladnimada Soomaaliyeed xurriyadda Soomaaliyeed inuu ku hayo inaad daawanayseen baan u maleynayaa runtii waxaan isleeyahay Farmaajo xayndaabkii dawladnimada wuu ka gudbay maxaa yeelay xayndaabka dawladnimadu waa sharci xayndaabka dawladnimadu waa dastuur xayndaabka dawladnimadu waa ixtiraam iyo isqadarin iyo ismaqal iyo wada hadal iyo wada xaajood haddii uu damcay inuu qori caaradii dadka iyo dalka uu ugu taliyo waxaan filayaa inaan qori caaradii dalka iyo dalka loogu talin karin dunida tusaalooyin badan dad isku dayay inay qori caaradii ku taliyaan masiirkooda waa laga warqabaa masiirkooda meeshay mareen aad iyo aad looga warqabaa shacabka Soomaaliyeed xabadaha Farmaajo uu haystay waa ka tiro badan yihiin hadduu isku dayo dhammaantood inuu xabadihiisa ku laayo waxaa la hubaa shacabka ka soo hari doona xabadaha shacabka Soomaaliyeed dad xabad loogu goodin karo ma aha dadka Muqdisho dad xabad loogu goodin karo ma aha dad lagu cabsi gelin karo ma aha warlooray ka soo badbaadeen iyo hogaamiye kooxeedyo argagixisay ka soo badbaadeen Ethiopian ka soo badbaadeen cid kastay ka soo badbaadeen ayaga haray waxaan rabnaa Farmaajo inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed ayaga hari doona adiguna waa tagi doontaa waliba wada xun oo aad iyo aad u xun ayaad ku tagi doontaa awal waxaan dhihi jirnay madaxweyne Farmaajo
maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu leeyahay haddii uu xilka ka dego sharaf inuu madaxweynihii hore ahaa iyo xildhibaan qaran inuu ahaa hadda sharaftaas xataa ma heli doono sharaftii madaxweyne soomaaliyeed horena ma heli doono sharaftii xildhibaan qaran oo abadi ahna ma heli doono wuxuu ku dambeyn doonaa xabsi wuxuu ku dambeyn doonaa meel xun oo fool xun oo shacabkiisii iyo dadkiisii uu xasuuqay shalay ninkii ra'iisul wasaaraha ka dhigo madaxweynihiisii ahaa labadii madaxweyne ee asaga garbaha qabtay ee taageeray shacabkii Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliyeed sida dimuqraadiga ah magaalada Muqdisho ugu soo baxay inuu maanta xabad ugu bedelo ayaan darro aad iyo aad u weyn waay farmaajo waxaa la doortay 8 February hotelkan Jazeero aan joogaan anigu waxaan kula kulmay 9 February annagoo madaxweynayaashii dawlad goboleedyada xilligaa jirnay ah ayaan hotelkan kula kulan ila taliyuuna yiri waxyaabahan kula taliyay qodob kamid ah waxaa kamid ahaa waxaan ku yiri madaxweynuhu shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan sida ay xalay ku soo dhaweeyeen waad ogeyd waa arkiis gaar ahaan dadka Muqdisho joogaahay siday ku soo dhaweeyeen waa arkiis mustawahaas lagu soo dhaweeyay iyo heerkaas lagu soo dhaweeyay hoos ha uga dhicin maalintii ayada ah taladii aan siiyay iyo maanta meesha uu joogaahay farmaajo waa arkaysaa dadkii xaq sida ogeyd u soo dhaweeyay oo ku faraxsanaa in doorashadiisa ku faraxsanaa hoggaankiisa iyo hoggaaminimadiisa ayuu maanta wuxuu ugu bedelo abaal uga dhigay inuu xabad iyo dil ayuu abaal uga dhigay waxaan aaminsanahay siyaasadda Soomaaliya farmaajo si xun buu u soo galay meel xunna wuu ka soo galay siyaasina ma aha hoggaamiyana ma aha muwaadinna ma aha waa nin dawladnimada iyo siyaasadaba si qaldan u fahamsan xoog iyo caburin iyo dictatornimo u fahamsan waa insha Allah ta'ala siyaasaddan wuu ka bixi doonaa talada dalka iyo hoggaanka dalkana wuu ka bixi doonaa annagana saacadan laga bilaabo waxaan sheegaynaa doorashana wada hadal kala gali mayno lana tartami mayno asna tartami maayo nin dambiilo ah in la soo xiro oo maxkamad la soo taago ay u dhiman tahay oo kale away beesha caalamka waxaan rabnaa inaan u sheegno ayaan darro waaye caawinaadii taangiyadii hubkii rasaastii ayaga ay bixiyeen in shacabka Soomaaliyeed lagu laayo waa ayaan darro ilaalinta Amazon ee ilaalinayso ninka dictatorka ayaan darro waaye shuruucda adduunka ka soo horjeeda sharciyada dunida oo dhan ka soo horjeeda dictator marna sax ma aha in dadkiisa asagoo leynayo la ilaaliyo sax ma aha waa arkayseen dad nabdoon oo mudaharaadaya oo hoggaamiyaashoodii iyo shacabkoodii oo dhan wada socda inay xalay ilaa maanta ay maaragtay xabadeynayeen oo leynayeen waa arkayseen sidaas inaad ku dhowrataan waxaan u aragnaa inaad raalli uga tihiin u aragnaa beesha caalamka waxaan u aragnaa farmaajo iyo waxa uu sameynaya inay raalli ka yihiin u aragnaa shacabka Soomaaliyeed sidaas bay u arkaan haddii kale falkaas fal ka duwan ayaan u baahanaa dawlad goboleedyada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa ninkan dhigyacabka ah oo shacabka Soomaaliyeed sidaas aragteen u leynaya nin tala Soomaaliyeed inaad la soo fariisataan oo u timaadaan ay tahay sax ma aha ha u imaanina ha la fariisanina waana inaad soo saartaan waxa uu sameynaya iyo waxa ay tahay inay mid xindaabka dawladnimada ka baxsan inay tahay waa inaad soo saartaan haddii kale oo aad la u timaadaan oo la fariisataan waxaan u aragnaa idinkana dambiga inaad la wadaagtaan oo la mid tihiin aan u aragnaa